بسم الله. halkan waxaan ku duubaynaa cashir weli ka mida qayb jabtarka afraad decimaliska ah kuna saabsan kala goynta decimaliska ama kala goynta tobanlaha ah. waxaan u baahannahay sidaan tusaalayaasha ku arki doono waxaa muhiim ah kala goynta labadan shardi. kow, isku aadinta si kal ah lambarada decimaliska inaad nambarada markay aad kala goynaysid aad isku aadiso oo mid walba midkuu ku aadan yahay ku aadiso sidii isu geyntoo kale dhibicda ku aado nambarka booska waniska jooga waniska ku aado tenka ku aado. xagga dhibicda midigta waxa ka xigana waa tenths inuu ku aado, hundreds inuu ku aado, thousands inuu ku aado. waxaa la raacinayaa qaybta dhibicda midigta ka xigta ths ama th baa la raacinayaa. waxaa kaloo muhiim ah haddii labada nambar mid uu dhiman yahay oo mid uu nambaradiisa uu kaamil yihiin midna uu nusqaan yahay waxaa lagu darayaa eberka lagu darayana waxa waaye hadba inta nambar ee nambarkaas kale uu ka kooban haddii laba nambar ay ka xigto midigta dhibicda laba eber baa ku daraysaa hadday ka badan yihiinna intii hadba loo baahan yaha lagu daraya. intaas waa shuruudaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inay marka hore yimaadaan. halkan waxaan ku samaynaynaa marka tusaalaheena koowaad ku saabsan kala goynta decimaliska. tusaalaheena koowaad wuxuuna leeyahay waa examplekeena koowaad waa waxaana la siiyey 76.4. waxaan ka goonaynaa eber dhibic 13. shardiga koowaad muxuu ahaa marka waa inaan isku aadinaa si kal ah tirooyinkan. waxaan dhahaynaa nambarka aan wax ka goonayno waa 76.4. 76.4 sidaan sheegnaba dhibicdan ku aadinaynaa. dhibicda bidix waxaa ka xiga eberku wuxuu ka taagan yahay iyo 6 oo isku toosiyaan sababtoo ah labaduba waa wanis. 4 waxaa ku toosiya 1, 3danu bannaanka istaagaysaa. waxaa marka kan kore aan u baahannahay 1 eber inaan ku darno hoostana ka xariiqno markaana aan kala goyno. waa shuruuddii naloo sheega labadii shardi ahayd ee ahaa isku aadin nambaradaada sida ay isugu habboon yihiin, sida ay isugu miisaan yihiin, sida ay value ahaan ama qiimo ahaan isugu abbaaran yihiin ama isu leeg yihiin. hadda marka waxaan samaynaynaa kala goyntii caadiga ahayd. waxaan leenahay markaan kala goonayno eberka 3 baan ka jaraynaa kama go'a marka waa inaan soo amaahanaa oo halkaan 3 baan ka dhigaynaa halkaana 10 baan ka dhigaynaa. marka waxaan leenahay 10 ka goo 3 waa 7. 3 baa halkan noogu harsaneyd waan ku dul qoranay si aanu xasuusanaano waa 2. 3 ka goo 1 waa 2. dhibicda sideedaan usoo dhiganaynaa 6 ka jar eber waa 6. 7dana sideeda. halkaa waxaa noogu eg jawaabteennuna waa taas. waxaan ku xijinaynaa example tusaale kale
oo kaa lamida oo aad examplekii labaad waxaana la yiri exampleka labaad soddon iyo sagaal laga jaray 3.84 markan waxa waaye number buuxa oo whole ah oo integer ah ayaa waxaan ka goonayaa 3.84 3.84 sidii hadda caadiga aan u sameeyo oo kale marka hore waa inaan u qoraa kalsi line up oo vertical ah oo kala waxaan leeyahay 39 39ku dhibic ma wadato marka waa in anigu dhibic ku daraa okay kan kale waxa waaye waa 3 ku aadaysaa dhibicdii baan dhigayaa 84 nambarkayga kore marka waxaan arkaa dhibicda inay ka dambayso waxba kan hoosena waxaan arkaa laba number 8 iyo 4 inay ka dambayso marka kor waxaa waaye waa inaan ku daraa 2 eber kaas baahida meesha ii muuqata kala goontu waa intaas markaasaan kala goonayaa waxaan samaynayaa marka 4 eber kama go'do haddaan numberka bidixda ka xiga fiirin waa eber kale waasna waxba kama soo qaadan karo marka waa inaan 9 ka soo qaataa 9kan ka soo qaadanaya xabad 8 bay noqonaysaa eberkaanaan dhigayaa soke waa 10 kiiba xabad ka qaadanaya 9 xabadii aan qaadan waxaan geynayaa halka kan eberka ugu dambeeyo midigta xiga wuxuu noqonayaa 10 xisaabteeda hadda saasay u fadhidaa 9kii 8 baan u bedelay eberka 9ka ku xigana 9 buu noqday eberka ugu dambeeyna 10 waxaan leeyahay 10 ka jir 4 waa 6 9 ka jir 8 waa 1 dhibicdii booskeeda dhigo 8 ka jir 3 waa 5 3dana sideed u dhigo jawaabteeda halkaas ku egtay isku geyntu marka aan ka hadlayno kala goyntu ma adka sidii isu geynta oo kale bay qaab leedahay oo waa isku darayne decimalka laakiin hadda waan kala goonaynaa marka intaasaa farqiga u dhaxaysa laakiin ma kala duwana qaab ahaan midna waa isku dar midna waa kala goon waxaan u gudbaynaa exerciseka bejka labaad oo aan raba in aan su'aalaha aan wax ka fiirsho sidii hadda kahor aan soo sheegnayba waxaa muhiima inaynu fiirino qaabka su-aasha naloo weydiinayo su-aasha koowaad hadda haddaan fiirino waxaana la leeyahay from .5 subtract 0.52 waxaan soo sheegnay hadda kahor markaan ka shaqaynaynay sidee ayaan ku ogaanayaa numberkan wax ku goonaya luuqad ahaan waxaa laga yaabaa inay qofku siduu nambarada u dhigi lahaa u kala garan numberkan fromta la socoto fromta waxay la socotaa kan kaas xariiqdu tilmaamaya ayay la socotaa fromta waxay la socotaa numberkan fromta waxay la socotaa numberkan asagaa hor dhigayna marka asagaan wax ka goonayna waxaan leenahay 3.5 laga jaray eber dhibic 5 labo dib waxaan ugu noqonaynaa shuruudaheennii caadiga ah waxaan leenahay
waxaan u qoraynaa si kala 3 3.5 dhibicda ku aadinayna dhibicda midig waxaa ka xiga eber xagga kalena waxaa ku xiga 5 iyo 2 ma sinna marka nambaradayda midna 2 nambar buu wataa midna 1 nambar kan hoosaa 2 wata marka kor inaan ku daro eber wey markaanaan kala gooyo kala goynteeda marka haddaan kala goonayo waa inaan fiirshaa sidee igu sahlanta haddaan hadda halkan 5tan kore ee eberka bidixda ka xigta hal ka qaato 4 ay noqonee arrintaa marka waxaa hadhow imaanaysa oo aan 10 ka dhigo waxaa imaanaysa meesha 4ta ah in ay hadhow ka go'i weydo 5ta ka hooseysa marka 2 qaabba waa la samayn karaa hadda inaad hal ka qaadato 5ta oo eberka 10 kuu noqdo 2 ka joogto hadhowna 4tii hal aad u doonato 3da ka soo qaadato ama marka horeba meesha ugu habboon inaad 3da tagto ood ka qaadato oo wixii ka bacdina 15 markay kuu noqoto xabada ka qaadato oo halka 14 ku haysta marka sidaasaan samaynaynaa 3dan xabad ka qaadaynaa 2 ka dhigaynaa halkan 5 iyo 10 baan ka dhigaynaa 5 iyo 10tii waa xabad ka qaadanaynaa 4 iyo 10 aan ka dhigaynaa haddana halkaana 10 bay noo noqonay aan ku celiyo marka aan rabno inaan soo wax baaro gareyno haddii aan 5tan kore ee eberka ka dambeysa ka qaadno hal oo eberkii 10 oo bedelno halkan 4 baa ku haraysa 4tii marka hadhow 5tan kama go'do 5tan kama go'do oo iyada ka hooseysa waa inaan mar labaad soo baarow gareynaa oo 3dii tagnaa xabad ka soo qaadnaa marka intii aan labadaa gacmood labadaa jeer ku noqnoqon lahayd waxaa ka sahlan 3daba inaad marka hore xabad ka soo qaado oo 2 u bedesho xabadii 5tii aa ku darto 5 iyo 10 noqoto 5 iyo 10kiina xabad ka qaadato oo 4 iyo 10 u noqdo xabadiina qaadatayna aad 10 ka dhigto oo 10kaas eberkii uu 10 noqdo markaan aan kala goyno hadda marka waxaan haysanaa 10 laga jaray 2 waa 8 4 iyo 10 laga jaray 5 waa 9 halkan dhibicdii dhigo halkan waxaa kugu haray 2 jawaabteenu marka waa saas erayo kala duwan ayaa exercise b loo isticmaalaya waxaa ka mid a from waxaa ka mid a take away and subtract labadaba waa isku macno waa ka qaad waxaan kan ka qaad ereyga faromta la socotaana mar kastaba ah kan wax laga gooniyo kan weyn wax laga gooniyo hadda waxaan samaynaynaa number 9 fiiri number 9na si uu qoran yahay waxaa inoogu qoran subtract five from 16.5 waxaana la yiri ka goo 5 baan ka goonaynaa 16.5 haddii kii hore ee kan hadda aad isu fiirisid qaabka qoraalka ah waa kala duwan yihiin oo kaasi from baa horeysay kana from baa dambeysay kaas subtract baa dambeysay kan subtract sidaan sheegay mar kastaba numberkee kor dhigaysa adoo shuruudahaaga ku soconaya ayaa muhiim ah 16 numberka fromtu la socoto waa kana fromtu waxay markaan la socotaa numberka hadaytis falaarta waxaan u qoraynaa saan hadda cagsigeedaan u qoraynaa kaas xag numberkii baa xagga
numberkaas waa kan weyn kan waa kan waxa loo gooni waxaan leenahay 16.5 laga jaray 5 okay waa isku hoos qoraynaa hadda line upkii baan samaynaynaa 16.5 laga gooy 5tu marka waa whole number ma aha 5 dhibicna ma wata dhibic baan ku daraynaa eberna waa raacinaynaa kaas kan kale waxaa xagga ka xiga hal number baa dhibicda xagga ka xiga marka maadaama hal dhibic ka xigta aan dhibicdii 5tii raacino hal eber baan ku darsaynaa waxaan leenahay 5 ka goo eber waa 5tii dhibicdii qor 16 5 ka jar 6 ka jar 5 waa hal halkii kalena gooniisa u qadna jawaabtan marka waxay noqonaysaa 11.5 casharkan wuu sahlan yahay su'aalaha word problemskana ama masalooyinkana way sahlan yihiin waxaan ka rajaynayaa inaad si sahlan uga soo wada shaqaysaan casharkan casharka ku xiga oo ah isku dhufashada decimaliska baan filayaa inuu noogu xigi doono laga bilaabo isku dhufashada iyo isu qaybinta casharadu way soo cuslaan doonaan kuwana ugu sahlan marka insha Allah halkaas oo cashirku noo joogaya maanta